qur'aanku waa hadalkii Ilaahay ee lagu soo dejiyay Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam waxaana uu leeyahay fadli iyo sharaf aad u weyn oo ay helayso cid kasta oo ka qayb qaadata ilaalintiisa, xifdintiisa iyo ku dhaqmidiisaba. Malakul Jibriil waxa uu qur'aanka soo gaarsiiyay Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam waxaana uu noqday sayidka malaa'igta waxaana lagu magacaabay Ruuxul Amiin. Nabi Muhammadna naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee waxaa ku soo degay qur'aanka waxaana uu noqday sayidka kuwii hore iyo kuwii dambaba iyo kii ugu fadliga badnaa rususha. Qur'aanku waxa uu ku soo degay ummadda Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam waxaana ay ummadda nebigu noqotay ummadda ummadaha ugu khayrka badan. sidoo kale waxaa qur'aanka la soo dejiyay bisha Ramadaan waxaana ay noqotay sayidka bilaha oo dhan iyo bisha ugu fadliga badan 12 bilood. qur'aanka waxaa la soo dejiyay habeen ka mid ah bisha Ramadaan oo loo yaqaano Laylatul Qadri waxaana uu habeenkaasi noqday habeen ka khayr badan 1000 bilood. haddaba marka uu qur'aanku dega qalbiga qofka bini'aadamka ah yacnihi uu xifdiyo kuna dhaqmo isaga oo samaynaya camal kasta oo uu qur'aanku amrayo sidoo kalena ka tegaya wax kasta oo uu ka reebayo samayntiisa qofkaasi waxa uu noqonayaa qofka dadka ugu khayrka badan. nebiguna naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee waxa uu dhahay khayrukum man tacallama alqur'aana wacallamah oo ay macnaheedu tahay waxaa idinku khayr badan qofka barta qur'aanka ee dadkana sii bara.